anigu waxaan deganaa Madiina waxaan soo baxay isla maalintii waxaan soo baxay markay saacadu ahayd 2 duhurnimo ama 8 saac waqtiga sida loo yaqaanaba waxaan ka soo baxay Madiina aniga iyo wiil aan saaxiib ahayn oo Faarax Lamaane la yiraahdo jidka Zoobaan ku soo hagaagnay kadib waxaan la kulannay meeshii oo jaam ah wadadii aad u xiran tahay gawaari waaweyn oo xamuulan ay ku jirto abaar saacadaas waxay ahayd 2:20 daqiiqo ilaa 2:30 daqiiqo qiyaas ahaan markii aan xaafadii tagnay oo qadeynay oo aan salaadii casar tukanayo ayaa waxaan maqlay jugtii saameysay ummadda Soomaaliyeed oo dhan runtii aniga markii ugu horeysay aan qarax maqlo bay ahayd aad baan u argagaxay waan naxnay telefoon la dirdiray kadib waxaan ogaanay in qarax uu ka dhacay Soobe qaraxna uu qarax weyn yahay kadib aniga oo Facebook-gayga aan isticmaalayo ayaan waxaan ku arkay in aad loogu baahan yahay in dhiig la shubo oo ay jirto baahi dhiig oo aad u weyn wiilashii ila socday waxaan ku qanciyay inaan baxno kadibna aan tagno cusbitaalada dhiig looga baahan yahay waa israacnay kooxdayadii waxaanu ka lugaynay dabka ilaa waxaanu ku tagnay halkii masiibadu ka dhacday qaraxa Soobe uu ka dhacay iskuiska Soobe runtii habeenkii waxay dhaayahaygu qabteen waxay ahayd wax aniga lafteeda maskaxdeeda dhaawac weyn u geystay runtii haddii aan runtii dul cararo oo dhowr wax idin ka sheego habeenkaas dhiigga soconayay oo aanu dhex maraynay waxaad moodaysay biyo dabcan waad aragtay markuu roobku da'o guryuhu soo darooraan biyahooda ay isu yimaadaan dabeetana ay waddada ku soo dhacaan dareen noocaas aan moodaysay oo kabahayaga xataa qaarkood aanu inoogu soo galeen dhiiggii badnidiisa waxaa meesha yaalay meyd aad u fara badan oo qaarkood gubtay waxaa runtii intaan sii soconay oo lugeynaynay na barbar ordayay maamooyin aad u ooyaya oo hadallo runtii annaga lafteeda dareen nagu beeray ka sheekaynaya oo wiilashoodii ama ubadkoodii raadinaya aniga qulubtayda aad bay u bedeshay waan isbedelay xaaladii aan ku jiray oo dhanna markaas way isbedeshay waxaan galay xaalad aanan weligii gelin maxaa yeelay waxay igu darnayd anoo soconaya markii aan siibtay ama aan dhici gaadhay kadib markaan fiiriyo wixii aan ku dhici gaadhay uu noqday hilib googo'ay oo meeshii yaala waa dareemi kartaa qof bini aadan oo muslim ah oo hilibkiisii intuu googo'ay aad adigu waddadii ku siibanaysay meeshu mugdi bay ahayd dabcan layrku ka go'ay ciidanaa joogay dab baa baxayay oo runtii gaari weyn oo sonkor siday baa dadka aad u gubay oo sonkortii baa dadka gubtay qaylada oohinta baroor diiqda calaacalka hooyooyinka iyo aabayaasha meesha taagnaa waxay ahaayeen wax dareenka qofka bini aadamka ah aad u taabanaya runtii urta dhiigga iyo qiiqa dabka iyo jirka dadka oo gubtay oo saddexdoodii ay isla falgaleen ayaa waxay sameeyeen ur gooniya oo aan weligii hore u arag maxaa yeelay dhiiguna ur gaar u leeyahay oo la yaqaano wax markii gubtaan oo qiiqiisuna ur buu leeyahay laakiin jir gubtay urkiisan markaas ay ugu horreysay inaan arko aniga caloosha ay xanuuntay waa istaagi kari waayey waana ordi kari waayey koos meelaad ku ordo ma joogtid haddaa istaada yaro soco xoogaa oo taltalaabso dadan hoostaada iyo fiilmeyd baa ku joogsanaysaa qof kalaad jiiraysaa aayar baan iskaga soconnay ilaahay uu naga dhex saaray waa ka dhex baxnay waxaan tagnay cusbitaalada Banaadir iyo Madiina iyo kulli si aan dhiig u shubno aniga iyo kooxdii kale ila socotay laakiin way noo suurtagal weeyday inaan dhiig shubno maxaa yeelay Madiina oo kale waxaa saf ku jiray mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay markaa gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabic Cabdi oo iyagu dhiig shubayay wasiirka arrimaha gudaha dad noocaas aad u badan baa saf ku jira oo markaa shubayay markaas way noo suurtagal weeyday waan soo noqonay Banaadir baan nima anagoo wali lugaynayna waxaan isku daynaa inaan dhiig shubno waxaan loo sheegay dhakhaatiirtii dhammaantood inaan qaliimo iyo hawlo kale caafimaad ay ku jiraan haddana waan lugaynay waxaan tagnay dhanka iyo Kalkaal Hospital Kalkaal baan tagnay Kalkaal baan waxaan ka codsanay in dhiig naga shubaan Kalkaal waxay noo sheegeen inay 4 qof kaliya ay dhiig ka shubi karaan ama 5 qof runtii anigu waxaan ku idhi niyahow igu dara wax kale doonto ha igu noqoto
kooxdaydu markaa aad bay u badnayd ilaa 10 qof baanu gaadhaynay dhalinyaradii kale ee magaalada joogto waxaan ku yidhi idinku waxaa laga yaabaa inaad magaaladii joogtaan laakiin anigii magaalada waxaan ku ahay safar markaa aadaan ugu baahanay inaan dhiigana shubo igu dara waa la igu daray habeenkii halkii baan dhiiga ku shubnay waqtigii aan dhiiga shubaynay waxay nagu gaadhay ilaa 3 habeenimo ama 9 saac oo habeenimo qofka siduu yaqaano runtii cisbitaalka waxaa soo gaadhay dad dhaawaca dad qaarkood cisbitaalka ay ku nafbaxeen qalliino waxyaabo badan oo cisbitaalka ku arkay dhaawacyo aad u badan runtii waxay noqotay dhacdo aniga si gaar ah dareenkayga u taabatay maxaa yeelay qof kastoo damiir lagu dareemi karaa hooyo ooyeysa dareenkaas waxaa igaga sii saameyn badnaa anigoo arkay meydkii siduu u yaallo hilibkii oo googo'ay dhibaatadii meeshay ka dhacday oo aan weli maaragtay markaas weli dabkii uu baxaayo aan la demin runtii waxay noqotay masiibo runtii aad iyo aad qalbigayga u taabatay ummadda Soomaaliyeed oo dhanna taabatay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inaan tan iyo mid la mida toonna aanay nagu soo noqon ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed inta ay qabiilka ku mashquulsan yihiin iyo inta ay qoloqolada ku mashquulsan yihiin ayaa laga faa'iideysanayaa in ummadda ilaahay qalbigooda isu soo dhaweeyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan si gaar ah fariin ugu dirayaa dhibta ugu badan dhalinyaro ay ku dhacday dhibta ugu badan dhalinyaro ay saamaysay ka sokow dhibaatada hooyada ku dhacday talabaad waxay ahayd dhibaatada dhalinyarada ku dhacday waxaan rabaa inaan kula dardaarmo marka dhacdo kastoo adduunka ka dhacdo ma jirto magaalo weligeed nabad ahaan jirtay adduunyada magaalo kasta rafaad iyo dhibaato iyo olol iyo dab way soo martay haddana dadku cashar bay ka bartaan oo waxay noqotaa wax cilmi laga barto dabeetana waxaa lagu dhaqmo waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed inaanay wax cilmiyaba ka baranayn dhibaatooyinka maalin kasta soo noqnoqonaya waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada anigu aan ka mid ka ahay inay cashar ka bartaan oo ay iyagu isku duubni iyo wanaag iyo nabadda waddankooda ay ka taliyaan waxa dhacay masiibo ka weyne bulsho yahay ka dhiidhiya maanta oo dhibkooda aan la dareenno inta dhaawac gaadhay jirkooda in dhaqaale meesha ku weyday iyo dhimashadoo tiro beeshay uma jeedno maanta dhaliilo dhaleecayn xanuunku ka weyne dhalinyaroy runaan u midowno awooddeenna aan ka dhabayno aqoonteenna dheefsanna maanta hooyada dhibaatadu gaadhay aabbaha dhallaanka ku waayey war aan dhaawacooda dareenno xamaray haquusan dhankaaga waxaa iman dhalaaro wanaag leh amni iyo dhalaal wirwidhaaya xamaray haquusan dhankaaga awooddaadii baa dhalan doonta dhalintuna aday kuu hiilin xamaray haquusan dhankaaga dhaaxay colaad ku dul joogtay dhaaxaad dagaal xamilaysay oo dhiig ku daatay korkaaga muqdishoy dhibaatadu waa mar mana sii jirayso dhegteedu qarax iyo masiibo dhammaatay war u hura dhaqaale dadkiinna dhibanaha xanuunsan daweeya dhakhtarrada tagoo garab siiya dhiig shuba walaal sadaqaysta dhacdadani xanuunka ay reebtay waa dhaawac gaadhay xiskeenna dhammaanteen haddaan samidowno oo aan kacdoon ka dhabayno sumcaddeenni baa dhalanaysa midka dhoofsan baa iman doona kan dhaqaaqayaa degi doona waddankoo dhan baa xasilaya waa mahadsantihiin